Dhaawaca agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliya Sharmaarke Maxamed Warsame ayaa diyaarad gaar ah oo kuwa caafimaadka loogu qaaday dalka Turkiga, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ka suguutiyay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk Soomaaliya, agaasimayaasha waaxyaha, mas'uuliyiin kale, xildhibaano iyo waalidiinta agaasime Sharmaarke. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa ugu mahadceliyay cid walba oo gacan ka geysatay sidii loogu heli lahaa caafimaad dibadda ah. waxaa noo suurto gashay inaan garoonka ka sagootino dhaawaca agaasimaha telefishinka qaranka Sharmaarke Maxamed Warsame oo ku dhaawacmay weerar ay ku soo qaadeen nabadiidku 20kii bisha isaga iyo Allah u naxariistay agaasimihii idaacadda Cabdicasiis Maxamuud Buuleed. waxaan halkan uga mahad celinaynaa Ilaah baa mahad leh, ra'iisul wasaaraha, xubnaha golaha wasiirada, xildhibaanada khaasatan xildhibaan Saamir iyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo dhiigooda shubay oo aan maalin laga dhaqaaqin oo nala joogay oo haddana sagootintiisa oo diyaaradda guuxeesa aad maqlaysaan aan maalin laga dhaqaaqin ayaan u mahad celinaynaa. mahadda koobaadna Ilaah baa leh, mahadda labaadna ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa oo noo suurtageliyey imaanshaha diyaaraddan iyo inaannu agaasimaha Sharmaarke qaadno maanta noo suurtageliyey. waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan madaxda wasaaradda warfaafinta, wasiirka, wasiir ku-xigeenka, agaasimayaasha, dhammaan shaqaalaha, ehelada, qaraabada, isbitaallada. Wasiirka dekedaha Galmudug xildhibaan Saabir Nuur Shooriye ayaa dhankiisa sidoo kale u mahad celiyey mas'uuliyiinta gacanta ka geysatay in dibadda loo qaado, waxaana uu caafimaad taam ah u rajeeyay agaasime Sharmaarke Maxamed Warsame. Salaatu wassalaam calaa rasuulillah. waxaa runtii maaragtay Ilaahay mahadiisa ah galabtay halkan dadaal dheer kadib in Ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sahlay agaasimaha Sharmaarke in halkan diyaarad barayfada looga qaado dalka loo dilo dalka Turkiga. Allah subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa caafimaad taam ah in Ilaahay ku siiyo, dhibka uu ku jiran Ilaahay ka bixiyo una fududeeyo, maaragtay Ilaahayna asagoo nabada noo soo nabad celiyo. intaas kadib runtii waxaan rabaa mahad celin aad u weyn oo la soo koobi karin inaan runtii halkan uga diro oo nama ujeediyo dadaalka dheer iyo shaqada adag ay qabteen runtii laga soo bilaabo ra'iisul wasaaruhu kow ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, wasiirka warfaafinta Dube, agaasimayaasha, agaasimaha guud Cabdullaahi iyo dhammaan agaasimayaasha iyo bahda maaragtay warbaahinta qaranka oo runtii gelisay juhdi tiro badan wada gelisay, famil ahaan iyo ehl ahaanna runtii aad noo garab istaagay, noola maaragtay tacaadufay. runtii waxaan leenahay jazaakumullahu khayr, dad isku duuban oo ehela oo famil ayaa tihiin. waxaan idin rajaynayaa maaragtay warbaahinta qaranka iyo tiimkooda inay weligood sidaa isugu duubnaadaan. Agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliya Sharmaarke Maxamed Warsame ayaa ku dhaawacmay qarax kooxaha khawaarijta Al-Shabaab ay la beegsadeen gaari ay la socdeen agaasimihii raadiyo Muqdisho Allah u naxariistay Cabdicasiis Maxamed Guuleed oo qaraxa ku dhintay, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay Cabduqaadir Cabdullaahi Nuur oo ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta. Mustafa Xasan Cabdi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.